muslimiinta waxa waaye saddex dad ka badan aysan isdagaalsaneen waaye marka ya axasto wasaaradda wuxuu taagan yahay dadka walaalaha ah kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtiin iyo isagoo noo daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halka naga daawanaysaan waa badbaada show fadlan subscribe channelka haddii aad ku cusub tahay gambaleenkana furo si muuqaal halkan aan soo gelin ay tartiib ugu soo dhacaan isla markaana aad u daawato waxa kula hadlayo waa wiilkeena fadlan u kala kacay miskiinka okay caawa video cusub ayaan wadaa video wuxuu ku saabsan yahay waxaan wada filaynay oo qurux badan ayaa caawa dhacay maxaa waaye waxaa si toos ah caawa gacan iskugu jeeday markaan heshiis kala saxiixday amaba heshiis dhex maray cabdiqaadir nidaami iyo sidoo kale xaasato okay waxaan ogsoonahay in dadkan ay muddo isku dhacsanaayeen kadib jabsigii durdur media oo in badan lagu eedeeyay nidaami balse ugu dambeyntii xaqiiqada amaba sida iyaga hadda ay noo sheegeen ay noqotay in nidaami oo berikees markaan uusan jabsan youtube-kaas balse ciwaan magaciisa ku samaysan lagu jabsaday bal muuqaalkan daawana qof dumar ah laba ma aamini doono qof dumar ah ma aamini doono ko lacagna ma aaminaay lacag tiilan ma aamini assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof dumar ah hordhacay hadaftaas kelibkaas laakiin qof dumar ma aamini doono lacag ma aamini doono kulle ushaas meel ayay ku socotaa waan arki doonaa ushaas meel ayay ku socotaa durdur media iyo abaal media show abaal show aad nagala socotiin waxaa la jooga cabdiqaadir cabdullaahi saal nidaamiye liibaan shoorla iyo abwaankii weynaa heesaheena inta badan saameynta ku lahaa abwaan mastaani abwaan reer daarus heesihii kala iskacsanaa ee murtidii iyo madadaalada ahaa ee durdur media kasoo boqonaya abwaankaas qayb ka ahaa سلام runtii kaftan iyo qanaax waa qaybtaas asxaabay waxaa jiri jirtay nidaamiye xasantooba isdagaalay nidaamiye xasantooba asxaabi waxaa jiri jirtay macnaha sheeko noo dha asxaabi waxaa jiri jirtay okay xasantooba maxaa jiri jiray noo sheekayba maanta maxaa jiri jiray isku dhaceen youtube la jabsaday intay ka baxday horta asxaabay horta waxaa idin sheegaa baaritaan iyo xogo badan aan raadinay waxaa ogaanay in maxaa la dhahaa kuluglaanshaha youtube-ka nidaamiyay inuusan maxaa la kulug lahayn laakiin ciwaan la sameeyey oo nidaamiy magaciisa camal ah gmail la sameeyey marka laakiin markaan fiirinay waxaa xaqiiqsanay inaan aniga saaxiibkeena heshiino oo dadka muslimiinta waxaa waaye saddex dad ka badan aysan isdagaalsaneen waaye marka axasto wasaaradda wuxuu taagan yahay dadka walaalaha ah saddex bil ka badan inay isdagaalsaneen saddex maalin ma ahayd saddex bil ay doogteen iyo axasto wasaaradda walaal maxaa wuxuu taagan yahay dadka walaalaha ah waa inay isdagaalsaneen saddex bil ka badan macnaha sheekadan waxay ahayd amaba sida macnaha saxda aan nala soo gaarsiiyey saddex maalin ka badan macnaha saddex maalin haddaad ka badan dad u qaado walaalka waa macnaha ma fiicna ma fahamtay marka naga qabtay ninkan barnaamijkan waxaan kasoo bilaabay dhammaan horey barnaamij cafis ahayn hore usoo bilaabay oo ahaa inaan dhammaan aan cafiyo oo dadka aniga isoo caayo dadka micno darada igu haysto dadka anoo wax ka hadleenin dadka ciwaano qaldan youtube igu soo qoro ma ahan hadafka inaan ayaga aan karbaasho ma ahan inaan nidaamiyo views ku raadsanayo ma ahan waxaa waaye sababta umaada meeshaan in maxaa la dhahaa u baahannahay kalsooni inay labadeena dhex marto abwaanka markhaatiyo ka yahay liibaan shoor loo joogaa dad badana marka waxay ku macaansadaan nidaamyaal soo fadhiisanaya xasantooba ka xun camal hal arko kaas waa kiis labo nidaamyaha saan sheegay nidaamyaha inta ka baxay qofaa waxaa dhehe inaa is aragnaa rabaa nidaamyaha meesha jooga be marka si aan waxaas horta waxa waaye barnaamijkan u dhexeeya ama howlahan u dhexeeya xasantooba nidaamiya waa waxaan ka wada dhargsanahay waxay ahaayeen muhiimaddu waxay tahay alxamdulilah haddii maanta qof walba halka ay joogtay ay garatay waxaa alxamdulilah ah in dad walaalo ah in muddo ah isku dhacsanaa social media waxyaaba fiican isku marsiinayay maanta haddii ay heshiiyeen waa wax qurux badan sidoo kale waxaa maasha allah
in nidaamiya qalad haddii lagu haystay ama tuhun oo jiray in wixii lasoo ogaaday in maxaa lahayaa beri oo kale ninkaan si kastaba ku imaado anaga taas ayaa macno noo wanaagsan sababtoo ah nin walaalka ah ama dad walaalaha ah kuula jira social mediaha sababtaas social media dadka ku jira waa dad ehel macnaha in maalin marka ay wax isku geystaan iska qabtaan wax maxaa lahayaa waxyaabo fiican isdib dhaafsadaan waa wax aad loogu qurux badan yahay maanta marka haddii ay heshiiyeen qof walba maxaa lahayaa oo iskartay maasha allah dan uga hortagno oo bes si aan waxaas dan uga hortagno ani nidaamiyay saaxiibkeena inaan wada shaqeysano inaan saaxiib noqono inaan wada shaqeysano oo sidii isku ahaajirna isku ahaano maqaayada aan joogno waa Zaytuni oo ah maqaayadii aan ku soo caanbaxnay maqaayadii ugu shilay caasimada Muqdisho daawadayaasha quruxda badan waxaa leeyahay aad baad u mahadsantihiin la socodka iyo sidaad mar kasta noo garab taagantihiin runtii waxaan ku faraxsanahay inaan mar kale is ag fadhino Liibaan Mustafa Saaq iyo Xasan Mustafa Saaq waxaa dhaxdeena ku jiro Abwaan Masaani oo kamid ah abwaaniinta inta badan adduunyada ugu jecel oo maanta garabka iyo hamiga leeyahay maanta aan ku fadhino runtii xaalado badan dhacay dhib badan dhacay dhaxdeeni in laga shaqeeyay oo dhibaato badan ay dhacda jirto laakiin Xasan Toob waa isha kaliya iyo meesha kaliya oo durdur aan ku soo caanbaxo leeyahay aad baan ugu mahad celinayaa mar kale in aan si nabada anakoo luqaafo okay waxa waa qofka markuu caadi soo noqdo xaqiiqadu ka hadlaa wuxuu sheegay nidaamay in durdur media ay tahay halkii uu ku soo baxay halkii soo saartay halkii banaanka keentay ummadda bartay xaqiiqada jirtana taas waay صح كورمان أقول أنا دردر مية أنا برتني هذا ما تنو فكرتي دردر مية أنا شو صارتي سويت تصور معنا وحكي كده جنت هاي هالشيء مرك أي تاي إن قفل بعلوش سكدو وبناك كان معنا سلو قاري شيء وافئة aan isoo imaano wada shaqeeyno halkan wada joogno maantana muuqaalkan si nabdoon aan ku wada duubeen runtii waa maalin kale oo xiiso waxaan rabaa inay fariin u noqoto dadka maalin walba ku faraxsan Xasan Toob iyo nidaamiya isdagaalsan Xasan Toob xaasid waaye Xasan Toob horumar ma rabo hadalkayga dhig hadal ma aha waxaan rabaa inaan dadka daawadayaasha commentiga noo soo qordo oo sheego dadkaas nimayahow aniga waa idin ka leexday afaariin ku jiri waa idin afiyay waxa idin ku haysta male okay soo hada Xasan ka dhawaajiyay horta waxa xaqiiqo ah dad marka ay heshiinayaan macnaha wax xumaan ay ka dhaxaysay dadka xumaan dadna ku farxayaan way dhici kartaa dad maanta inay ka xun yihiin heshiiskan kan ah imaata gaareen dadkan dadna ay ku farxsan yihiin macnaha aniga aan kamid ah ma fahanteen marka taas ayuu ka hadlaa sababtoo ah dadka walaalaha markii ay wanaag suubiyaan dad ay xumaado dad ay ku farxaan marka anaga ahaan iyo team badbaada show waxay idin leeyihiin ma sha Allah wax qurux badan ayaa sameeysan waa wax loo baahnaa waa wax la wada sugayay waa wax annagana aan ku faraxsanahay iyo qof kasta oo jecel qof walba oo youtuber ah iyo qof walba oo hamila inuu gool gaaro tan waxay kamid tahay guulaha la gaaro macnaha adigoo qof walaalka uqdaysan adigoo qof walaalka wax u qabo adigoo maxaa lahayd bal ay ku daba taagan tahay wiliga heer gaarist laakiin markii adiga saliim aad tahay waafi aad tahay heerka aad rabto waa gaaraysaa marka aad baad u mahadsantihiin asxaab qurux badan ee channelka ku xiran mar walba ii share gareysa kala kicisa maxaa lahayd like to share comment isiisa waan idin mahadcelinaa channelka idin leenahay waxaan kula hadlayaa wiilkeena marka mar labaad mar saddexaad aniga codsana subscribe saa channelka hadii aad gambaleelkan furo si muuqaalada ay ku soo daataan macnaha like share tana ha iloon comment-gan sidoo kale dhiirigelin waa walaalka badbaadin leh sidaas iyo nabadgelyo